asli waxay ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan, baarinimadeeda iyo farxadeeda joogtada ahina soo jiidatay kalgacalka gaarka ah ee waalidkeed u qabaan, halka ay jaarka iyo qaraabadeeduna si gooni ah carabka ugu hayaan. wuxuuna ahaa guriga asli gole ay ku kulmaan gabdhaha da-deeda ahi, iyagoo usoo xiisi jiray sheekada asli markay bilowdo dadkoo dhan ka qoslin jirtay. asli inkastoo ay 16 jir ahayd, haddana meel fog bay wax ka arki jirtay, waxayna la sheekaysan jirtay dadka ka da-da weyn, waxaana loo yaqaan farxaan, waayo iyadoo caraysan weli lama arag, cidinama sheegin. waalidka asli waxay siin jireen wax alla waxay u baahato. waxay aad u jeclayd riwaayadaha iyo shaniimooyinka hindiga ah, taasoo aanay markay suuqa tagayso iyo markay soo noqonayso cidina weydiin jirin halka ay tagayso. waalidkeeduna uu siiyey xorriyad buuxda, iyagoo kalsooni weyn ku qaba in ay wax xumaan ah usoo jiideynin. asli oo dhigan jirtay dugsiga dhexe ee macalin jaamac may lahayn saaxiibad u gaar ah. hablaha xaafadooda oo dhan iyo kuwa isku barteen dugsiga dhammaantood way jeclaayeen, guriga ayayna ugu iman jireen. cali amuur waxay walaalo ahaayeen. asli wuxuu ka weynaa 3 sano iyo saayid. maadaama amuur iyo asli ahaayeen labada oon loo dhexaynin, waxay isku ahaayeen kalgacal wada dhalasho kii ugu weynaa. amuur wuxuu galay xalane, wuxuuna ka mid noqday macalimiinta bb, waxaana loo bedelay degmada beledweyne. inkastoo weligii ka bixin amuur xamar, haddana ma ahayn dadka isku dhajiya goobtii ay ku dhasheen. waxaanu aad u jeclaa inuu gobolada dalka oo dhan tago. canab iyadoo marmarsiyo macquul ah sheeganayso bay ballan la dhigan jirtay rag aan mustaqbalkeeda dan ka lahayn, waxayna gaadhay heer ay qaadka haddii aanay helin xayraanto, sigaarkana midba bid bay shidan jirtay. shariif macow iyo xaajiyo xaliimo oo ahaa waalidka canab waxba kama ogeyn amuuraha dhacaya, waxayna la ahayd maadaama aanay cidi gurigooda soo geli karin oo aanan loo ogoleyn in gabadhooda bad qabto. asli waxay tegi jirtay guriga canab oo reerkooda oo dhan isbarteen. canabna sidoo kale ayay ahayd. maalin maalmaha ka mid ah waxaa canab iyo asli dhex maray dooda soo socota. walaal asli, horta saaxiib ma leedahay? saaxiibbaa? maya malihi. adiguna? ilaahay saaxiib la-aan ima dhigo. sanadkii hore waxaan saaxiib la ahaa wiil magaciisa la yiraahdo axmed oo sarkaal ahaa, waanu isdagaalnay, kadibna waxaan la saaxiibay wiil kale oo macalin ah, isna waan heshiin weynay. sanadkan waxaan bartay wiil kale oo caafimaadka ka shaqeeya oo ah wiil aad u dabci fiican, waana aad taqaanaa, waa wiilkii galabtii aan imtixaanka u naqanaynay albaabka noo taagnaa oo aan tagsiga wada raacaynay, kadibna labadayada aan la gudubnay, waxaana magaciisa la yiraahdaa khaliif. asli waxaa kasoo haray yaab iyo dhafoorhays. faraxii lagu yaqaanay wuxuu isku bedelay yaab, waayo kama fileen saaxiibadeed barnaamijka ay guda gashay. asli oo yaaban baa waxay ku tiri, canabay goormaad khaliif isguursanaysaan? waxaan isguursanaynaa sanadka dambe markaan fasalka 8aad ka baxo. khaliif oo ahaa nin daacad ah, markii uu ogaaday taariikhdii canab lana kulmay raggii ay hore isu yaqaaneen, buu go-aan ku gaaray inuu ka haro, inkastoo aanu rasmi ahaan ugu sheegin. wuxuuna reerkooda ku oran jiray ma jooga dhaha haddii isagoo guriga ku jira ay timaado canab. waxayna maalintii dambe kusoo kadisay khaliif oo aanay ka qasnayn oo la jooga gabadh canab ay hore sheekadeeda u maqashay, ayna ku tuhunsanayd in khaliif saaxiib la yahay. canab oo indhaheeda ilmo kusoo joogsadeen oo cadhaysan, gurigii dib uga noqotay. khaliif oo qoslayaba intuu gabadhii soo kaxeeyey iyada iyo canab isbaray. markaa kadibna canab buu dibadda ula baxay, wuxuuna daaradda ugu sheegay in uu yeeshay saaxiibad cusub, iyaduna wuxuu ka codsaday in ay ka harto oo mar dambe ayna iman gurigiisa. canab oo kacsan baa guriga asli timid, waxayna u sheegtay wixii qabsaday. asli way ku qosashay, waxayna ku tiri, maxaa ka micno ah, ma nin baad waayeysaa? asli fikirkeeda waxaa kusoo dhacay, gabadha waaba yar tahay, maxaa baddaas geliyey, may waxbarashadeeda iska sii wadato. canab waxay u soo martay asli in ay gurigooda u raacdo, balse asli hooyadeed ayaa suuqa ku maqnayd oo guriga cidlu ahaa. canab oo laamiga tagsi hodan geeya u sugaysa ayaa waxaa loo joojiyey baabuur ay saaran yihiin 2 wiil oo midkood si fiican ay isku yaqaanaan. canab way faraxday. haye cali ayay ku tiri. inta ay gaarigii hore u fuushay, cali wuxuu u sheegay inuu dhowr bilood raadinayay, wuxuuna baray ninkii la socday oo magaciisu ahaa cadaawe. markii cabaar la kaftamayay oo loo dhawaaday gurigii canab buu cali ku yiri, canabay
weli ma sidii baa gadhka lagaaga hayaa. Intaanay jawaabin buu ku adkeeyey in caawa iyada iyo gabar kale oo saaxiibadeed ah isaga iyo Cadaawe ay martiqaadeen. Canab waxay ku tiri, aniga waan imaan karaa, hase yeeshee saaxiibaday waa maskiin aan balwad lahayn, umana malaynayo haddii ay isoo raacdo in ay faa'iido idin leedahay. Cadaawe ayaa qoslay oo ku yiri, aniga waxaan ka helaa gabdhaha aamusan ee mar gacantayda ku soo hubso aad aragtid sida aan u aqaan sida gabdhaha ugub loo godle.